السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمانتين أصحابتا كوردان كابي تكنولوجي language كسودوادا كابي تكنولوجي language meel kasta ku sugantihiin aad iyo aad ayaan idin salaamayaa waxaan idinku salaamayaa mar labaad iyo mar saddexaad baa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh waan rajaynayaa dhammaantiin inaad caafimaad qabtaan meel kasta ku sugantihiin asxaabta iyo ardayda cusub ee nagu soo biiray waan idin soo dhaweynayaa kusoo dhawaada Kaabe Technology Language channelkan waxaa ka helaysaan mowduucyo kala duwan oo ku saabsan luqadda Ingiriiska iyo cilmiga kombiyuutarka meel kasta ku sugantihiin waan idinka mahadcelinayaa daawashada casharada Kaabe Technology Language mowduuceena macaawa ama maanta xilligay ku tahayba wuxuu khuseeyaa uu ku saabsan yahay luqadda Ingiriiska maadaama luqadda Ingiriiska ay tahay tan ugu caansan adduunyada oo dhan ay tahay tan ugu caansan ee laga isticmaalo waxaan rabnaa mowduuc gaaban inaan kaga hadalno luqadda Ingiriiska marka waxaan ku soo qaadanay lesson 87 hashka mowduuca تدسيديتن يتطبع topic موضوع عبود كسابسان English language لغة إنجليزية إنتان سنبلابين مقايقو وشال ماركا رالي جامع وحن وطاعد سيادي رؤاد وير أيام وطاع دمانتين ملكستاك سوغنتين وحرابا موضوعا إنا محيطي channel كان سبسكرايب كساميسان سيدو كلا عد سيغان وطاع وحوي إنا موضوعا محيطي لايكريسان فضلا لايكري موضوعا sidoo kale Facebook page hadaad nagala socoto iyadana waxa weeyaan na soo follow garay sidoo kale page kana like garay ashkana waxa weeyaan sidoo kale like ku samay waad ku mahadsan tahay inta hadii aad samaysay mowduuceena maanta ayaan isugu soo noqonaynaa mowduuceena wuxuu ku saabsan yahay luqadda Ingiriiska lesson 87 mowduuca 87 topic mowduuc about ku saabsan English language luqadda Ingiriisiga why English is learned, why we need to learn English. There are many reasons to learn English because it is one of the most difficult language to learn. It is important to focus on why English is learned, and the reason is that first, English is the most commonly used language throughout the world. When the people different language come together, they commonly use the English language in order to communicate. Second, knowing English will make you bilingual and more employable in every country in the world. Third, another reason why English is so important is that it is the language of science, and to excel in a science you need to know English. 40 in some countries, speaking English immediately opens up opportunity regardless of your ethnicity, color, and background. Okay, lesson 87 موضوع تضبط سيديتن يتضبط topic موضوع about كسامسان English language لغة إنجليزية why English إنجليزي إسلام لو برتا why English إسلامتي why إنجليزي لو برتا why we need to learn English waayo maxay noogu baahanahay inaan barano luqadda Ingiriisiga dadka badankooda ama dhalinyarta badankoodu waxay bartaan luqadda Ingiriisiga dadka badankoodu waxay xiiseeyaan luqadda Ingiriisiga why most of the people interested English language why do they ask Somalis to learn English interested to learn English why sababtaas ayaan idin weydiinayaa marka badankoodu dhalinyarta dadka oo badankoodu waxay ku bartaan luqadda Ingiriisiga ay bartaan sababo badan ayaa loo bartaa luqadda Ingiriisiga marka waxaan rabnaa inaan halka sababo badan aan ku sheegno kulay ilaa 6 ama ilaa dhowr 7 meelaha aan gaarsiino sababood oo luqadda Ingiriisiga loo barto why English is learned why Ingiriisiga loo bartaa why we nagu needaan uga baahanahay to learn English in an English barano there are waxa jira many reasons sababo badan to learn English oo English loo barto because maxaa yeelay iyada oo luqadda is the one of the most difficult language luqad waa mid kamid ah luqadaha ugu adag most difficult luqadaha ugu adag most difficult language waa mid kamid ah Englishku waa mid kamid ah luqadaha ugu adag to learn ee la barto it is important waxa muhiim ah to focus on inaan diiradda saarno beegsano ayaan doonaynaa why English Islam Ingiriisiga waayo loo bartaa and the reason is that sababtuna waa taa ashka keentay inaan markaa maxay ka soo diyaarino
First marka koowaad English ingiriisigu is waxa weeye the most commonly used language waa luqadda ugu caansan ee la isticmaalo weeye most commonly waa luqadan ugu caansan weeye user loo isticmaalo language luqadahan throughout the world adduunyada oo dhan waa luqadda ugu caansan ee la isticmaalo when markii people that with different language luqada kala duwan come together ay meel isugu yimaadaan dad leh luqada kala duwan ama language kala duwan ku hadla markay hal meel isugu yimaadaan iyagu commonly si guud user waxay isticmaalaan English ingiriisi ay isticmaalaan in order to communicate ay ugu wada xiriiraan oo ay ugu wada hadlaan communicate ay ugu wada xiriiraan oo ugu wada hadlaan waa marka koowaad second marka labaad knowing English marka taqaano ingiriisiga knowing English qofkan yaqaan garanaya ingiriisiga will make you waxay ka dhigtaa will make you waxay ka dhigaysaa bilingual mid laba luqad yaqaana luqadiisi hooyo iyo luqadan kale mid laba luqad yaqaana ay ka dhigaysaa bilingual luqada iyo laba luqad yaqaana ay ka dhigaysaa and more employable in badan ku shaqeyn yaqaana ay ka dhigaysaa in every country wadan kasta in the world adduunka oo aad tagto mid ku shaqeyn yaqaana ay ka dhigaysaa luqad marka taqaano taad marka saddexaad another reason is sababa kale why English waayo ingiriisigu so important ay muhiim u tahay istaadaya taa itiyada oo luqadda ingiriisiga ah waa the language waa luqadda of science ee cilmiga sayniska weeye ay ku jirtaa qaybta sayniska ay ku jirtaa English to excel saad ugu fiicnaato in sayniska saad ugu fiicnaato you need waxaad u baahan tahay know English inaad taqaano ingiriisiga ayaad u baahan tahay hadaad rabto inaad ku fiicnaato maxay tahay sayniska waxaad u baahan tahay know English inaad ingiriisiga taqaano waa markaas labaad waa markaas afraad 40 marka afraad in some countries wadamada qaarkood speaking English qofkan ku hadlaya maxay tahay ku hadalkan luqadda lagu hadlayo immediately durbadiiba opens up waxay u furtaa qofka luqadda ku hadlaya opportunities shaqooyin ay u furtaa fursado ay u furtaa opportunities fursado ay u furtaa regardless iyadoo aan la tixgelinaynin aan la eegaynin of your ethnicity jinsiyadaada nationality-gaaga adigaan la eegaynin ma Soomaali ba ma Sudanese ba ma Japanese ba iyadaan la eegaynin laakiinse kaliya la eegayo how to speak English sida uu qofkaasi marka maxay tahay ugu hadlayo luqadda marka regardless iyadaan la tixgelinaynin of your ethnicity jinsiyadaada iyadaan la tixgelinaynin kala midabkaaga iyadaan la tixgelin oo aan lahayn qofkan waa Afrikaan oo waa madow iyadaan la lahayn and background iyo waliba aasaaskaaga xaguu wax ka soo bilaabay iskuulka hoose ma soo dhigtay backgroundka taariikh nololeedkaada iyadaan la eegaynin ay ku furaysaa fursado shaqo oo muhiim ah ay Englishta ku furaysaa sidoo kale Englishta hada taqaano waxaad akhrisanaysaa shaqooyinka la soo hayeysiyo sidoo kale Englishta hada taqaano waxaad qoranaysaa oo aad samaysanaysaa CV qurux badan oo naftaada ku saabsan sidoo kale hadaad Englishta taqaano waxaad ka akhrisanaysaa macluumaad fara badan oo dad badan oo Englishta aan aqoon aanaysan garanaynin ayaad baranaysaa sidoo kale waxa ku fududaanaya waxyaabo badan oo maxay tahay waxaas ayaan maxay tahay ku xiranahay adduun maxay tahay digital age la yiraahdo maxay tahay maray wax walba maxay tahay English ay ku qoran yihiin oo wax yar mooyaane aan intooda badan wax kastaaba English bay ku qoran yihiin luqadii Soomaaliga wax kuma qorna saas kuma qorna hadaad raadiso iminka wax weeyaan wax waliba waxay kugu qoran yihiin English waxa laga yaabaa inaad iskuulka ku dhigato maadooyinka oo dhan aad English ku dhigato jaamacadda aad English ku dhigato college ka soo kale waxyaabaha dhiganayso dad computer u baahan tahay ama course kale aad u baahan tahay wuxuu ku qoran yahay luqadda Englishka ayuu ku qoran yahay saadarteed maxaa muhiim ah inaad luqadda Englishka aad si fiican isaga dhisto aad barato luqadda Englishka ayaa laga doonayaa okay marka in ku soo dadaal oo mar walba hubi maxay tahay in luqadaada aad iyo aad u wanaagsan tahay oo aad maxay tahay luqadaada ay heer caalami tahay hadaad rabto inaad luqadda Englishka iska dhisto waad nagu soo biiri kartaa waxaad heli kartaa buugaag kala duwan oo ka caawinaya inaad luqadda Englishka aad barato okay 50 marka shanaad English speakers kuwa ku hadla luqadda Ingiriisiga ee ku hadli kara in way kasbadaan more money lacag badan ay kasbadaan kuwan ku hadlaya luqadda Ingiriisiga waxay kasbadaan lacag badan dan waxayna ka kasbad badan yihiin oo ay kaga badan yihiin lacagta non English speaker kuwan ku hadlayna luqadda Ingiriisiga ay kaga kasbad badan yihiin because maxaa yeelay learning English marka taqaano aad dhigato Englishka oo aad Englishta aad dhigato will open
waxay kuu furaysaa job prospects rajooyinka shaqo ee aad adigu u baahan tahay ayay kuu furaysaa an increase waxayna kor u qaadaysaa your standard of living heerkaaga nololeed ayay kor u qaadaysaa macluumaad fara badan ayaad heli doontaa oo aad akhrisan doontaa waxaad heli doontaa waxyaabo badan ayaa kuu fududaan doona oo luqadda Englishka kaaga xidhan inaad markaa maxay taqaano money books buugaag fara badan magazine joornaalo fara badan ama wargeysyo fara badan technology farsamooyin fara badan newspaper wargeysyo fara badan information iyo waliba warbixinaha on the internet ee internetku and the computer study iyo barashada cilmiga computerku exit waxay ku qoran yihiin ama waxay u jiraan iyagoo ku qoran in English ayay ku qoran yihiin oo computerka de hadaan Soomaali lagaaga dhigin waxa weeyaan de kuma dhigan kartid maxay tahay English kuma Soomaali kuma dhiganaysa hadaan lagaaga dhiganin anaga waxaan doonaynaa hadda inaan buugaagta computerka aan ku dhigno inaan ka dhigno Soomaali u bedelo ayaan insha Allah ku rajaynahay waan wadnaa hawshaas 6 marka labaad the fact of the increasing amounts of the worldwide business the fact of the business dhab ahaantii xaqiiqooyinka of increasing ee soo kacaya soo koraya amounts cadaadiska of the worldwide business ee ganacsiga adduun weynaha businesska xaqiiq ahaantii businesska cadaadiska ganacsi weynaha adduunyada ee businesska ganacsiga sii koraya ee adduun weynuhu are being conducted waxa lagu hogaamiyaa in English ayaa lagu hogaamiyaa the fact of increasing amounts of the worldwide business ganacsiga adduun weynaha ee sii koraya sii xoogaysanaya are being conducted ee aad aragtay waxa lagu hogaamiyaa in English ayaa lagu hogaamiyaa for example tusaalahaan people dad inay various macnaha wadamo kala duwan isaga kala yimi various countries wadamo kala duwan ka yimi are being given ayaa waxa la siinayaa the opportunity fursado to work ay ku shaqeeyaan ayaa la siinayaa based on iyadoo lagu salaynayo loo eegayo loo raacayo their capacity awoodooda to speak English ee ku hadalka luqadda Ingiriisiga iyadoo loo raacayo finally ugu dambeyntii there are waxa jira more important articles qodobo fara badan oo aad iyo aad u muhiim ah ayaa jira to learn English oo Ingiriisiga loo barto ama loo dhigto adigu ujeedada aad dhigataa maxay tahay luqadda Ingiriiska sababtu maxay tahay but laakiin seetaa baaf intan aan kor kuugu soo xusay 6 qodob oo aan kor kuugu soo xusay 7 qodob oo aan kor kuugu soo xusay should be enough ayaa kaaga filan to tell you inaan ku sheego and if you want hadii aad doonayso to have inaad yeelataan choice dooq hadaa yeelataan rabtaan inaad yeelataan nolosha inaad dooq ka yeelataan hadaa rabtaan in a living nolosha inaad dooq yeelataan oo aad interest iyo waxaad adigu doonayso aad rabto inaad yeelato learning English barashada inaad Ingiriisiga aad si fiican u barato oo aad iska dhistaa is the one of the most ways waa hababka ugu fiican is the most best ways waa hababka ugu fiican to accomplish that ee aad kaga guulgaari karto ee aad ku guuleysan karto ayay ka mid tahay luqadda Ingiriisiga inaad barato aad si fiican isaga dhisto Okay, interaantibu ku celino marka finally English speakers earn more money than non-English speaker because learning English will open job prospects and increase your standard of living. Money books, magazine, technology, newspaper, information on the internet and the computer study exist in English. 60. The impact of the increasing amounts of the worldwide business are being conducted in English. For example, people in various countries are being given the opportunity to work based on their capacity to speak English. Finally, there are more important articles to learn English, but the above should be enough to tell you, and if you want to have choice in the life, learning English is the one of the best ways to accomplish that. And halkaas ayaan kusoo gabagabeynayaa mowduuca maanta, laakiinse tala ahaantan kusoo jeedinaya waxa weeye saaxiib luqadda Ingiriiska iska dhis hadaad nolosha aad rabto inaad horumar ka gaadho, sababtoo ah wax kasta oo aad aragto waxa weeyaan luqadda Ingiriiska ay u baahan yihiin. Hadda telefoon baad sidataa, telefoonkaas hadda app kasta soo furto wuxuu ku qoran yahay luqadda Ingiriiska, waxa laga yaabaa inay dhibaatooyin fara badan kaaga yimaadaan oo aanad san garanin.
markaas aad waxaas oo dhan u garato u fahanto shaqooyin badan aad u hesho noloshaada kor aad ugu qaado luqadda Englishka waxay ka mid tahay inaad si fiican isaga dhisto oo aad luqadda aad taqaano 24ka waqtiyada la sii gudbiyo waxyaabaha aadka u muhiimka noqon doona waxa weeye waa inuu qofku u yaqaano luqadda Englishka ayaa iman doonta halkaas ayaan mawduuceena maanta aan kusoo gabagabeynayaa hadaad u baahan tahay buugaag heer caalami oo si heer sare loo diyaariyay ka anfacaya ama kuu saamaxaya inaad luqadda Englishka siday tahay aad u barato qaybta grammar ahaan oo aad barato how to speak English language iyo dhammaan waxyaabaha hoos imanaya oo dhan sidoo kale aad barato how to use English language oo qaybtii practice-kii understanding-kii reading-kii writing-kii waxyaabahaas oo dhan aad rabto inaad iska dhisto waxaan ku haynaa buugaag ku anfici doona kuu sahli doona inaad luqadda Englishka aad si fiican u barato marka waad nala soo xiriiri kartaa dhammaantiin aad iyo aad ayaan idinka mahadcelinayaa sida quruxda badan aad noola socotaan halkaas ayaan mawduuca maanta kusoo gabagabeynayaa intaan mawduuca xiga oo aad u xiiso badan aan isugu iman doono waxaan idinkaga tegayaa inaad mawduuca like ku samaysaan sidoo kale channelkana aad subscribe garaysaan facebookna naga soo follow gareeya aad baa ugu mahadsantihiin wabillahi tawfiiq والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.